duubana weligana isku duubnaano waayo dadka lama dhaco lama daadiyo waxaynu wax ku nahay waa shacabkeena waxaynu cisi ku leenahay waa shacabkeena waxaynu sharaf ku leenahay waa shacabkeena waa inaynu xigsanaa shacabka bari marka madaxtinimadu timaado maaha shacabka in dheerka u sii jeediso waa dardaaranka aan farayo madaxweyne maanta laga bilaabee cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal waa fariinta aan farayo sidaad maanta shacabka ay ku yihiin kala duwan xisbiga wadani habeen xafidan fadhiya iyo Soomaaliland oo baxdo gobolada oo baxay dhamaantoodba waxa gabanaa u hambalyeeyaan u salaamayaa dadweynahan gobolka Maroodijeex u soo baxay banaanbaxa maalinta xisbiga wadani uu leeyahay oo waxa doorashooyinka hadal badan ay dadku ka bacday taagan yihiin hadal badan oo ma dadku way farbadan yihiin waxa leeyahay sidii uu dhisay xisbiyada dalka Soomaaliland xilliga xigaw ilaa maanta uma codeen wali xisbiga kulmiyaha ma taageerin laakiin maanta waxaan taageerayaa oo aan u rooynayaa xisbiga wadani iyo musharaxiisa haddii la hayraahdo insha Allah waxaan rajaynayaa inay ku guuleysan doono maxaa doorashada waxaan taaganahay oo ay suuqyada dhaweenka gudihiisa ku imanaysa laba wiilal iyo toban shaabad la yiraahdo ayay aan taageerayaa oo rooynayaa waxa kaloo soo jeedinayaa inaan la ismacaashinin oo la isooranin waa faa'iido ma dhowaa dagaal badan baa la gelayaa waxaa la gelayaa codayn aad u dhib badan baa la gelayaa qof kastaaba waxa weeye reer Soomaaliland uu joogo ha iska abaabula keligii oo kambeynna laga noqdo oo hala dadaalo guulayso madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ha guulayso Soomaaliland ha guulaysato walaalayaal waad mahadsantihiin sida sharafta waad iskugu soo baxdeen waxaan u mahadnaqayaa guddida qabaqaabada heer qaran ee isku soo barnaamijka qiimaha badan ay noo samaysay waa maalin weyn ilaahay baa weyne kulmaya u tagayaa wadani u imaanayaa ciidda u imaanayaa muuse u tagayaa waxaan doonaynaa maalinta codka inaad maalintaa hilisaan Soomaaliland baa loo hilinayaa cabdiraxmaan loo hilin maayo wadani loo hilin maayo Soomaaliland baa haadaan ka dhacaysa waxaynu u baahannahay Soomaaliland badbaadino soo sidaa ma aha labada cadba waa wadani wasalaamu calaykum maanta si fiican u soo qabanqaabiyey xafladda qiimaha leh halka aynu isugu nimid waxaan rajaynaynaa musharaxeenna cabdiraxmaan maxamed inuu helo doorashada wuuna helayaa ilaahayna kii wuu helayaa isaga iyo maaragtay ku-xigeenkiisu insha Allah way helayaan waxaan doonayaa inaan idiin sheego isbeddelka waa laga hadlay isbeddelku waxa weeye waxay maanta dadku dhibsanayaan ayaa la bedelayaa wax khayrna loo guulayaa guri baa laga guulayaa abaarsan guri hoy baa la tegayaa wax alla waxay dhibsanayaan oo dhan ayaan doonaynaa maanta inaan wax khayr lagu bedelo ilaahayna hayna waafajiyo in yaroo gabaya ayaa waxaan ku sheegayaa isbeddelku waxa uu yahay waxaan leeyahay isbeddelka sinaan baan doonaynaa cadaaladdarraan u fulin dadka oo la xidhaan u fulin koryeed baan doonaynaa dagaal baan diidaynaa ammaan baan doonaynaa oogala fashimaan u fulin mid daacada baan rabnaa harraad baan diidaynaa xareer baan doonaynaa gurbo baan diidaynaa sinaan baan doonaynaa gurbo baan diidaynaa dalguud baan doonaynaa sabar baan diidaynaa barwaaqaan doonaynaa darxumadaan diidaynaa daryeel baan doonaynaa war soo sidaa maaha guul baan isku rajaynaynaa waxaan maanta leeyahay waa reer kulmiyow eedla badan baa laynu daba qaaday eedla badan baa xidhiidhsan
maanta doorashadaas aad ka yeeshaan ayay waanwaantiinnu ku ximan tahay. haddaad doorashadaa wanaajisaan daahir iyaalaydu noqon, haddaad xumaysaan digtaytaradii afrika ee kukuni wadee idi amiin ogayaha guud ee xisbiga halgamaa Khadar Xuseen Cabdi. intaa markaan ka yimaado maanta waxaynu isugu soo baxnay galgacal aynu waddani jecel nahay iyo xiise cidlo gaar aynu ugu qabno. maaha waxaynu isugu soo baxnay qarankeenii jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalayaasha dunida sumcadda ku lahaa oo qabiil iyo qoys loo qaybiyey. waxaynu dalka doonaynaa inaynu ka saarno qabyaaladda. waxaynu doonaynaa dalka inaynu ku soo celinno haybaddii qarannimada. codkaaga waxaad ugu hiilinaysaa maaha waddani iyo musharaxa, waa Somalilantii quruxda badnayd soo celinteeda, Somalilantii sumcadda dunida ku lahayd, Somalilantii midnimadeedu sool ilaa galbeed ay ahayd, Somalilantii nolosha wanaagsan ee maciishadda kooban ku nooleedaysa, Somalilantii isku fillayd, Somalilantii dunidu majeeran jirtay. taasaynu maanta doorashadan iyo milcidan u istaagaynaa. waxaynu bartan u taagannahay inaynu nolosheenna u samayno, inaynu nolosheenna u dooranno hoggaan caafimaadkeenna, cusbitaallo hooyooyinkeennu dhisa, dowladnimo ciidankeenna maanta noloshooda aynu ognahay samada geysa, oo ciidanka gurya u dhista, oo ciidanka sharaftooda ilaalisa, oo ciidanka mushaharka u kordhisa, oo ciidanka halgankeenna ugu jira milciga taagan qiimahooda garanaysa. waxaynu dhisanaynaa dowladnimo waxbarasho tayada inoo samaynaysa. intaasoo dhan baynu doonaynaa inaynu ku dadaalno. waxaynu samaysanaynaa dowladnimo inoo damaanad qaado garsoor cadaalada oo ummadda u dhaxeeya, oo sharafta muwaadinka dhowra, dowladnimo goolayaasha iyo sharci dejinta ilaalisa, dowladnimo kala dambayntii nidaamkii isla xisaabtanka soo celisa. cabdiraxmaan cirre waxaynu uga baahan nahay siduu maayirku magaalada u qurxiyey inuu Somaliland isla u qurxiyo. waxaynu cabdiraxmaan ka doonaynaa soo maaha sidaasoo kale soo diyaartaa uma dhihin, kuma helayna haddaba taa maanta isu soo baxayna. waxaynu ku helaynaa inaynu soo istaagno 6da subaxnimo, oynu 6da maqribnimo ka dhaqaaqno goobaha codbixinta, oynu wacyigelin samayno. maalintaas waxaynu u hiilinaynaa 12 saacadood cabdiraxmaan. isagana waxaynu doonaynaa inuu 5 sannadood Somaliland u hiiliyo, muwaadiniinta u hiiliyo. soo taa diyaar uma dhihin. maalin keliya taa codkaaga ugu deeq inaad 5 sannadood aad ku dhisato xukuumadaadu baad leedahay. odayaashaa badan, madaxdaa badan, waxaan ku soo dhowaynayaa inta iga dambaysa. waxaan idinkula dardaarmayaa sharafteennaanu dhowraynaa markaynu baxno hadda, innagoo isku duuban, innagoo amniga ilaalinayna, innagoo ciidana, innagoo magaalada waxba yeelay, innagoo bidixda dhowrayna, innagoo akhlaaqda dhowrayna. si nidaamna aynu ku soo galnay, si nidaamna waynaynu ku baxnaa. dhammaanteen bilays aynu wada noqonno, dhammaanteen dowladdii hoose kaloo wax shaqaynaysa aynu noqonno, dhammaanteen aynu mas-uuliyadiisa saarno, calamadeenna aynu qaadanno, ciidankeenna aynu quwayno, ciiddeenna aynu jeclaanno. Somaliland ha guulaysato, Somaliland ha guulaysato. cabdiraxmaan alla ha guuleeyo, mid khayrna alla ha ka dhigo, xisbiga waddani alla ha guuleeyo, musharax ku-xigeenka maxamed cali alla ha guuleeyo. mid baan idiin sheegayaa, codku maalinta la codaynayo waa nambarka 1 oo cabdiraxmaan iyo musharaxa ah, iyo nambarka 9aad oo xisbiga. fariintaa waa inaad ogaataan. aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum. isbeddelku ha guulaysto, isbeddelku ha guulaysto. cabdiraxmaan cabdilaahi cirre ha guulaysto, ha guulaysto. isbeddelka 3 qodob ayaa guddiga. innagu waxaynu doonaynaa Somaliland inaynu midayno, innagu waxaynu doonaynaa inaynu dalkan horumarka samayno, innagu waxaynu doonaynaa inay dadku noqdaan mid. allahu akbar, allahu akbar. waxay inaga inoo ballana ballantii xalay waa ka soo baxdeenoo beertii xorriyaddu way buuxdaa. innaga waxay inoo ballana 13 Noofembar, 13 Noofembar
saddex tobanka Nofembar laba wiig baa inaga xiga maanta halkaa waxaa ka muuqata inuu isbeddelkii guulaystay Somaliland waxaan ugu baaqayaa rag iyo dumar iroole waxay raacday isbeddelka war dadka naga maqaneen fara ku tirifka ahow isbeddelka soo raaca si ay Somaliland u noqoto mid Somaliland waa mid isbeddelku ha guulaysto inaga oo dhammi waxaynu noqonaynaa mid Somaliland waxay u dhaqaaqaysaa isbeddel iyo horumar Allahu akbar nabadgelyada inoo ilaaliyaan وانا رين ودماشات وتاغيرو waxa weeye hore la idin guubaabiyay boqol sheer baanu hadalay dalka waxa ka xun iyo sida loo bedelay koroora la idinku sheegay maanta waxa weeye waxaynu muddo raadinaynay ayaa kaabiga keenay isbedel baynu doonaynay intaan dabadaynay waa la diidanaa waa laga soo horjeeday doorashadaa la diidanaa dagaal iyo rafaad iyo halgan iyo dad badan baa ka qayb galay maanta way timi meel looga noqonayaana ma jirto waxaan u mahadnaqayaa marka hore meeyarka oonu waalid u ahay aabbihii iyo adeerkii waanu isku arday ahayn oonu saaxiib ahayn aad baan ugu faraxsanahay saaxiibbaday iyo aabbihiiba inuu maanta inankiisii kaalintaa gaadhay uu qaranka halkaa kaga taagan yahay anigana ammaan bay ii tahay iyo farxad waanan u ducaynayaa inuu ilaahay wuxuu doonayaba ku guulayo waxa weeye anigu maanta waxaan idin leeyahay meel laga noqdaa ma jirto doorashadii daayeerku baa layidhi geedka markuu dabada qabsado ayuu meel u ka dhaxu waayaa maanta dhufays walba waynu ka saarray maanta farteennay ku xidhan tahay farteenna dalkan qabyo badan baa taalla dalkan waa la kala qaybiyey waa laga hiiliyey dabad iyo gudaba waa laga hiiliyey arrimihii dabadda ee ictiraafraadinta ayaa xidlo lagaga dhaqaaqay saaxiibbadii Somaliland oo dhan ayaa dhabarka soo jeediyey waxaasna waxay ku timi talaxumo iyo tala qaadan la'aan iyo ismoodsiis ina dadka iyo dadku ummadaba ka caqli badan ka ragan marwata ilaahay bini aadamka naaqis buu ka dhigay qof isku filani ma jiro qof walba intaa ku hareeraysan ayaa tilmaanta oo hagta oo hagaajisa ninka aamino inuu cudurba ka caqli badan yahay inuu cudurba ka fiican yahay uu qofkii wala u yimaado wuxuu sheegay muxuu sheegayaa muxuu garanayaa waa tamaanta halkaana dhigtay Somaliland maanta badbaado u baahan tahay doorashadan ay badbaadano ku imanaysaa doorashada waa la diidanaa badbaadadaa la diidanaa maanta waxaynu yeelaynaa labadaa faroo taaga macnaheedu waxa weeye taageerayaasha xisbiga meel kastay joogaan codkeennu waa labadaa cod waa cabdiraxmaan iyo maxamed cabdi madaxweynihii madaxxigeenka ta labaadna waxa weeye waa xisbigu cod buu u baahan yahay waxaynu u baahannahay xisbigeennu codka ugu badan inuu ku soo baxo weliba caasimaddu waa meesha ugu codka badan leh waa halkii hooyigii xukuumadda waa halkii xukuumaddu degganayd taageerayaasha ugu badan iyo codka ugu badan waanu hargeysa ka helaa xisbigu iyo musharrafu taasi ballan ma tahay kaadhkana waa ilaashanaysaan soo dhowaysta kaadhka soo dhowaysta dardaarankiiuna siiyey meeyarku waa laydin qashqashi doonaa waa laydin dhibi doonaa waa laydin cadadin doonaa safkaa laydinku caayi doonaa safkaa laydinku maagi doonaa marka codka ku ridaysaan markaad adugu ninka kacan sarrayso looma xanaaqo ma xanaaqina xanaaqa iyagaa leh maanta Somaliland badbaadada ay sugaysaa hadday ictiraafkii tahay
hadday dhaqaalihii tahay hadday horumarkii tahay hadday walaalayntii dadkaa la kala irneeyey ee qaarra cadowga somalilan lagu sheegay dadkaa sidii laysugu soo celin lahaa waa xisbiga waddani oo talada dalka yimaada qaarna waxaannu ku maraynaa inaannu ummadda isu soo celinno inaannu ummadda isku jahayno in musulmaanku meesha ka baxo in inanka nabada jaamacada ka baxay aan loo kala abtirin maanta waa loo kala abtiriyaa waynu ognahay inaan loo kala abtirin waddani guul mahadnaqayaa inaad midicda iyo cadceedda u taagan tihiin inaad dareenkiina muujisaan oo aan horseedaan in somalilan isbeddel ka dhaco reer waddanow ma ila socotaan walaalayaal sidaad wada og tihiin somalilan way kala tabatay oo way kala tirsatay oo badan oo ay kala tabanaysa ayaa jira somalilan waxay u baahan tahay nin tabashooyinkaa wax ka qabta nin kastoo wax tabanayana geel la fadhiista cabdiraxmaan ciro waa musharaxeenna waxaana ka go'an oo uu sharaxan yahay inuu somalilan waxay kala tabanaysa dhammeeyo mideeyo walaaleeyo ka dhigo dad wada jira oo dal wada leh waxaan rajaynayaa maadaama uu aragtidaa xambaarsan yahay inaad ugu yiidisaan oo codkiinna ku siisaan soo codka siin maysaan soo xisbigeennana soo saari maysaan waddani ha guulaysto ree hargeyso may maqlaysaan mayla socotaa waxaynu u baahannahay xukuumad ay ka go'an tahay oo barnaamij ka leh in caasimadda hargeysa la horumariyo oo miisaaniyadda u gelisa miisaaniyad la yidhaahdo miisaaniyadda horumarinta caasimadda jamhuuriyadda somalilan musharaxeennuna diyaar wuxuu u yahay inuu horumariyo caasimadda oo uu u qoondeeyo miisaaniyad u gaara soo taa ku dooran maysaan waa reer waddanow mayla socotaan magaaladan hargeysa la yidhaahdo oo ah caasimaddii meeshii la isugu wada yimi ee somalilan isugu wada timi waxay u baahan tahay xukuumad u dug leh oo u dheg leh oo barnaamij ka leh oo horumarinaysa oo maayarka gacan siinaysa musharaxeennana ballantaa waan ka qaaday wuu ina garab istaagayaa caasimaddana wuu horumarinayaa reer somalilanoo may maqlaysaan waa loo kala abtiriyey oo loo qoloqoleeyey cabdiraxmaan wuxuu u taagan yahay inuu ummadda somalilan walaaleeyo oo u mideeyo reer waxba u dooni maayo wuxuu doonayaa somalilanka kala tirsanaysa ee kala tabanaysa inuu isu doono isu keeno walaaleeyo horumariyo saboolkana nolol u sameeyo ma ku dooranaysaan walaalayaal waxaa laydinku yidhaahdaa cid baa cadowa cidda cadowgaa ma idiin sheegaa war ninka dhallinyarada shaqo u abuuri waaye baa cadowa ka saboolka nolol u samayn waaye baa cadowa ka somalilan horumari waaye baa cadowa ka midayn waaye ayaa cadowa waar ka dib inoo dhigay baa cadowa cadow ma nihin reer somalilan baynu nahay dalkan baynu jecellahay dalkan baynu doonaynaa inuu isbeddelo horumaro ninka cadow inugu sheegaana ilaahayna been buu sheegay dadkiisana been buu sheegay waxaa cadowa ninka meel gey waayey waxaa cadowa ninka geed beeri waayey waxaa cadowa ninka qashinka qaadi waayey waxaa cadowa ninka dhallinyarada shaqo u abuuri waayey walaalayaal halka ugu dambaysa ma wada soconnaa shaqada inoo taallaa waxa weeye nin waliba inuu cod doono inta laga gaadhayo 13 Noofembar qanci saaxiibka qoyskaaga wada qanci kuyuuga ha loo samro codkii ugu badnaa abin waa inaynu ku dadaalnaa saynu heli lahayn codkuna wuxuu ku imanayaa iskacaansiin cadceeddoo loo samro iyadoo loo lugeeyo qofka maalintaa doonaya inaanu cadhoyn oo guriga laga soo kiciyo may maqlaysaa reer waddanow somalilan oo mid ah oo walaala ah oo wax inala leh oo xitaa kii aan inoo codayn ee waddani ku jirin wax inala leeyahay soo diyaar uma tiidin oo xitaa isagu hadduu inaga badsadaa aynaan waxba ka qabin waayo somalilan baynu jecellahay siday somalilan ku guulaysanaysaana waxa weeye maalinta aynu guulaysanno inaynu u dhaqaaqno sidii dadkeenna aynu u midaysan lahayn